xisbigii wadani ayaa meeshii ugu adkayd maraya isagoo khilaaf weyna soo food saaray bal marka hore arintan ila yara dhageyso weyn faalayna dhawaan waxaynu hubnaa ka bilaabmi doono khilaaf suuqa bilaabmaya sababta uga bilaabmaya waxa weeyaan Cabdikariin Axmed Mooge tawaanin hay'ad doonay wixii lagu heshiiyay waxay ahayd in xisbigan yaa ku heshiiyay heshiiska moorbadka waa dhageyso waa lagu heshiiyay hadaa Cabdikariin Axmed okay warcad arintaas waa arin aan horay barnaamij uga duubay maalmihii Cabdikariin Axmed Mooge uu kaambeynka soo baxay okay hadaba waxaan idin sheegay qaabka xisbigan wadani isku haysto khilaafka dhex imanaya iyo sida la isku barkan yahay baan idin sheegay xisbiga wadani horta wuxuu markii horeysay dadaal lagu dadaalay sida Cabdiraxmaan Cirro uu u noqon lahaa madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro markii uu soo dhigay baashi wuxuu war aniga gaarsiiyay madaxweyne haddii aan madaxweyne noqon waayay waan iskaga tagayaa meesha doontaan kala dhaca xirsi baan gudoomiyihii kala uu ka dhigay isagoo ina jirto oo marka hore la doonay uu ina jirto ka dalaashay xirsi markii uu meesha qabsaday Cabdiraxmaan Cirro hawshii dagaal adag ba ka dhex qarxay ragid ama dadkii doonariska xisbiga dhaqaalaha bixinay waqti hawlo badan buu soo maray aduu ugu dambeyntii dib baa loo taageeray Cabdiraxmaan Cirro wuxuu yiri anu murashax maanahay okay hadaba xisbiyada waa la bedelay imika oo 11 qof oo boora loo sameeyay si xisbiga aanu hal qof awoodiisa u yeelan oo dooreen markan u dhameysay gudida diiwaangelinta iyo barnaamijkaas la soo saaray maadaama xisbiyadii mar walba noqdaan xisbiye hal nin leeyahay arinta iyadoo laga hortagayo ayaa 11 qof oo boora loo sameeyay oo hadhow tiro go'aamada ka gaadhaya xisbiga wadani golaha dhexe inta ugu badan beesha Cabdiraxmaan Cirro ka soo jeeda ah si kastaba ha ahaatee laakiin xirsi waa gudoomiyaha xisbiga maantana isaga sharci ahaan Cabdiraxmaan Cirro madaxweynaha dalka arintu markii halka marayso markii in Axmed Mooge la yiri war kaale adiga cod badan harkiisa ka keenay cid ha ku taageertay soo baxa waxa uu kula balamay beesha ciida galana ay ku tiri war waniga Allah halkan beel ma doonayna hayne kaale madaxweyne aad ka noqotay soo gal xan madaxweynaan leeyahay buuri sidii buu uu ku galay kaambeenkii isagana wixii ka raacay waadigii arkay oo aad loogu kacay si kastaba haatee markii dambe waxa dhacday in uu ninka la yiraahdo Khadar ama Khadar Garbahaari ninka wasiirka madaxtooyada imika oo Cirro in badan la soo shaqeeyay ayaa isna wuxuu leeyahay hadii doorkan la dhisay ciida gale aniga sharaxan loolanku hadaba waa 3 qaybood waa xirsi waxa weeye ninka la yiraahdo Khadar iyo Cabdikariin Axmed Mooge Khadar iyo Cabdikariin Axmed Mooge iyaga dagaal baa ku dhexdooda ka jira aniga ka noqonaya murashaxa madaxweynaha soo socda 5 sano ee 2029 wixii dambe iyo Cabdikariin Axmed Mooge caasimadii baan soo qurxiyay Somaliland ba ay jecel qof wax qabad laanahay waxyaabo noocaas akhriyaya anigu Cabdiraxmaan Cirro dabadii aniga isa soo sharaxaya inay beesha ciida gal iyagu doonayaan inantana cadaysay liibaan ba cadeeyay rag fara badan ba cadeeyay in Cabdiraxmaan Cirro la yiraahdo markaygii weeyi hadii aad shalay toola la dhisay habar Yoonis maantana waxa la dhisay ciida gale okay waa gar ninkii la oran jiray xirsi maxaa u nafa horta habar jeclo iyagu way ka sii gaashaanteen oo waxay yiraahdeen anagu xisbi gaar oo in ciidinala lahayn ma la soo baxnaa sidaas horta ka hayo kula soo baxeen habar jeclo kursigii saartay Cabdiraxmaan Cirro jeegaantiina hagbadii gacan iyo gacan la kala qaaday sidaas lagu kala tagay habar jeclo xisbi bay leedahay xirsi iyo xisbi la isku haysta iyo wax muran ka taagan yahay sanadka maanta uma socdaan halkaana Maxamed Abakar iyo Muuse Abakar marar hore soo dhisay ayaa taagan markaasi anagu waxaanu nahay Muuse Abakar habar jeclo ma kala hadho halka iyo ina xaashi aan isugu nimaadno khabar waadix ina xaashi inta ka dambeysay wuxuu doonayaa isagu campaign inuu ciyaaro sidii uu Subeer awal iyo dawladda mar walba isugu dhufan lahaa ay u kala fogaan lahaayeen garxajis iyo iyaguna Subeer awal oo dadaal fara badan ku bixinaya dawladuna ma fahansanay Cabdiraxmaan Cirro
iyadiiba bahashii sii fogeynayso waa tan salaadii ku dhisaysaa qodobkaana may haysaa halkaasi ay iyagu ka doonayaan in jeegaan cusub bartaa la saaro oo ninka la yiraahdo ina xaashi oo u yeedhay Cabdiweli ama maayirkii hore gabilay dabadeedna halka la yiraahdo Sacad Muuse aanu noqonana jeegaan iyo haas subeyriyadii hadaba iyagana subeera waligu waxay leeyihiin oo dagaalka ugu adag oo imika bilaabmaya barnaamij la yiraahdo xisbiga kulmiye habar jecel xisbi bay la soo baxday xisbigan horta waan wada lahayn siilaanyaha aasaaso laakiin raggii la aasaasay waxa kamid ah Cabdicasiis Samaale iyo ragga maanta dhex taagan oo waa la wada aasaasay xisbigana waa la wada lahaa oo jeegaan bay haydo marka hore jeegaan bay labadii madaxweyneba ku soo baxeen Axmed Siilaanyana kaligiis muu bixin Muuse bixina kaligiis isma bixin sidaas uu ku soo baxay xinifna warkiisa waad maqlaseen sheekadii jeegaantuna halkaas ku dhamaatay Maxamed Kaahin isagana la oran maayo hadiyadan iska qaado oo waan ku doorano waxaas uu dhamaaday Maxamed Kaahin jeegaantii ma soo celin kara hadduu keenayo jeegaantii la soo celin karo iyadu waa mowduuc kale laakiin anigoo qallalan cid lahayn idoorta halkaana ina xaashi habar jecel ha doorato halkana xirsi ha doorato way dhici weeydi waa la isaga dabayim xisbigii kulmiye wuxuu noqonayaa xisbi Subeer Awal qodobka ay dhig xisbigii wadanina dagaal adag kadib laba midun buu noqonayaa in ciida gala Khadar ama Cabdikariin Axmed Mooge oo Cabdiraxmaan Cirre dabadii sharaxnaado in ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cirre mar labaad soo noqdo intuu soo sharaxo uu yiraahdo qoladan dhalinyaratiino mustaqbal baad leeyihiin xaaladiinu ma dhawee iska suga waa qodob labaad xirsi hadaba isaga waxa weeye sheekadiisii way dhamaatay halka xirsi Maxamed Kaahin ba ku tagay ina xaashi oo habar jecel wadato garxajiso ama ciida gala ama habar Yunus kay doonaan ha noqdaan xisbiya iyo xisbi Subeer Awal waa Subeer Awal garxajis iyo habar jecel sheekadii markaa ahayd jeegaamaysigii yaa jeegaan noqonaya way dhamaatay yaa badka yaala waxa yaala Arab Sheekh Saxaaq iyo Samaroon iyo reerihii kale labada reer ee go'aaminaya doorashada mustaqbalka Somaliland qofka madaxweyne ka noqonaya 2029 waa habar jecel waa Arab iyo Samaroon cita ay raacayaan sida awgeed buu Cabdiraxmaan Durba bahashi uu fahmayo balay gubadlo waa ka wadooyin u daadiyay xagan boorama waa ka airport iyo wadooyin u daadiyay halka hadda siyaasad weyn baa ku jirta oo hadduu wax qabad fara badan Cabdiraxmaan siiyo waxa laga yaabaa 2029 hadii saddexda habrood meeshii yimaadaan in Cabdiraxmaan Cirre uu mar labaad helo maadaama oo aanay haysan beel kasta isku filnayn oo waa inay Samaroon ama Arab helaan way hadaba arintu dagaalka ugu adag wuxuu taagan yahay 2029 ninkii alla gaarsiiyay xisbiyada sida inta ka horeysa loolan adag oo lagu kala riixanayo xirsiyo sidii Faysal Cali muxuu ahaa Jamaal Cali Xuseen banaanka loo tuuro Maxamed Kaahin oo la yiraahdo adeer nin weyn waa tahay jeegaantina way burburtay hawshaas way dhamaatay isaguba gobonimo sameeyay yiraahdo waar tolna ma haya hawlna ma haye anagu Muuse Israacanay ducaan idinku daray halkaas weeriyadii soo istaagto garxajisna halkaas soo istaago halkaana ay soo istaagaan habar jecel midda hortayga qora laakiin dagaalka ugu weyn wuxuu ka dhex qarxayaa xirsi iyo nimanka yaryar ee Cabdikariin iyo Khadar iyo Cirre hadii uu kala saaro cala lixiga barnaamijka sheer gare waxa siyaasadana fahan aad iyo aad baan ku salaamaya